dowladda Itoobiya waxay ku tiri maamul baati ka tirsan Soomaaliya dowladda kuna maamul ka tirsan Itoobiya isfahankaas oo Soomaaliland inay faragelinta kala baxda deegaanka Soomaalida wixii ka dhacay deegaanka Soomaalida dowlad uu leeyahay in dowladda looga dambeeyo wafti ay soo jira wasiirka gaashaandhigga sidoo kale wasiirka amniga taliyaha guud ee booliska wafti caynkaas ayaa Hargeysa saaka soo qabansaday iyagoo ujeedkoodu yahay xagee socdo macadka reer way ka wareegtay dabar shabka siyaasadeed ee Soomaaliland kala kulantay maanta isku dayoodii ah inay soo fargeliyaan deegaanka Soomaalida wafti ayaa maanta ka yimaaday Hargeysa warbaahintooda oo aad been ugu caan baxday muddooyinkii ugu dambeeyay oo u noqotay wariyaashoodii iyo warbaahintooda kuwa u noqday warbaahinta halkan kala maayay waftiga ka yimaaday Soomaaliland waftigaas wuxuu ku soo galay deegaanka Soomaalida uu kaga soo ambabaxay Hargeysa saaka inay la kulmayaan dowladda federaalka ay kala naxaajoonayaan waxyaalaha ka dhacay dacwalay taasoo ku ahayd meel ka dhac ku ahayd deegaanka Soomaalida iyo faragelin qaawan oo aan loo meelday waxaan maleynayaa siyaasad xumo ay ahayd oo ninkan cirro oo ololihiisii ku ololeystay inuu yahay diblomaasi ka soo shaqeeyay ugu yaraan 40 sano siyaasadaha dunida baarlamaankana soo maray dabcan waxaad moodaa in siyaasadiisa sida ay sheegayeen maamulka deegaanka xal soo saareen ay ahayd Google Live siyaasadeed inay aad u daaladhacayaan siyaasadooda marka waxay kaga soo tagay shacabkoodii in dowladda deegaanka Soomaalida ay ka talaabayaan oo dowladda Itoobiya ay ma garanaysaa ay kala xajoonayaan wixii dacwale ka dhacay meesha wax ka dhacayna waa deegaanka Soomaalida marka taas isqabasiin baa u baahan tahay marka dowladda Itoobiya waxay ku tiri maamul baati ka tirsan Soomaaliya dowladda deegaanka kuna maamul ka tirsan Itoobiya marka si loo fiiriyo laba maamul baati dowladda federaal sabab ay idin la xajooto ma jirto waa arinta labaad arrimahan waxay ka dhaceen deegaanka Soomaalida dowladda Itoobiyana ismaamul waxa la dhaho federaal baa jira oo aynan waxaan u maleynayaa faham badan dadku ka haysanno federalismka dastuurka Itoobiya qodob baa jira inta badan loo qaato 39 ay dhahaan marka ismaamulka waxa loo sameeyay madaxweynaha ay u leeyihiin waa wixii gudahooda ka dhaca in ay iyagu xalistaan ma aha in Addis Ababa looga yeero haday laba wiil isku feeraan jigjiga tama marka fahan darro ayaa ka muuqata waxaad moodaa sidii Soomaalida siriyanaysay iyo wixii xagga ka jirtay markuu dagaalka la socono Socday iyo sidii ka kacayday iyo sidii in wax loo wajahay halkan waa dawlad weyn oo guuna iyo system baa ka jira marka waxa weey maanta waxa lagu soo dhaweeyay markii hore wajaala laga soo qaaday waxa loo sheegay in ciidamada ay soo hubeenayaan ka imanayaan Hargeysa ay joojiyaan hubka sharci darrada ay soo galayaan dalka joojiyaan taliyaha ciidanka booliska federaalka ayaa u sheegay Xuseen Qaasim oo ay maanta warbaahintoda uga falgaadeynaysa dabcan xagga dib ay ku istaagi doonaa ba waftigoodii ay lahaayeen dal bay ka yimaadeen oo federaal bay la xajoonayaan bay hoos tageen isaga madaxtooyada ku qaabilay wuxuuna ku soo dhamaaday isfahan sida ay noo sheegeen mas'uuliyiintu taas oo isfahankaas oo Soomaaliland inay faragelinta kala baxda deegaanka Soomaalida wixii ka dhacay deegaanka Soomaalida dowlad uu leeyahay in dowladda looga dambeeyo shacabkii iyo dowladuna ay kala saarto wixii meesha ka dhacay hadii wafti ay soo jira wasiirka gaashaandhigga sidoo kale wasiirka amniga taliyaha guud ee booliska wafti caynkaas ayaa Hargeysa saaka soo qabansaday iyagoo ujeedkoodu yahay xagee socdo macadka reer dhulka way ka wareegtay hadii warunta su'aasha muhiimka ah taas way ka wareegtay arsoo meesha loo maray dhulka looma soo marmo jigjiga soo loo maraa diyaarada la qaato waxa ay inta cigaal tarasha laga baxo in booli laga dago kadibna halka lagu soo dhaweeyo baabuur baan ka soo raacaya rakaaba sheeg booliska booliska federaalka ugu soo baaraya mustawaqa la soo weydiinaya diblomaasina waana adu isqabadsi انظر من أتى هنا يا إلهي إنه أبا خليفة مرحبا شبيه رجل البرية يا الروعة يا للروعة يا أهلا وسهلا حياك الله يا أبا خليفة يحييك ويبارك فيك ولكن